والله كان في رايد ما شاء الله. الباب كميتك وهل لكن صوابها كلا دوت نين أسود ركسر ودمنا نين أسود سلادي دكتور سحر ودمنا نين أسود حبل يعني دجال كجرو ودمنا نين أسود معاصي كجرو ودمنا نين بس يلا أسباب تأكل دوت مركز صواب تانو يحنون يجيكوا هينين وإله سبحانه وتعالى قدري أو نين كان لله ولكن أحمد دول وما تميد وهرتيني يعني إله سبحانه وتعالى أنتوا صدقنا أو قدري واحد مركز إله سبحانه وتعالى قضاء قدرت حماسية نجبضين يعني المرمركة قال هذا الله وحي معنا غضب يعني الكفرين إله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويل كيجي عنده هيك أها أن لا يقد لي دبنا لو قبتي دول ذوسنا أركن هذا حوينها حقين كيسة ما قصة وحارب عدالة هدي إله لك عبسنا أيوه وحن جعل ويلكي أنا لدي لي أنا تعرّع وقورة تعرّع ده أنا أقف فديه ما كسر نكى يدوق لا يوها ما كسر تربي أقول عادي شري وحن مقلعي وإذا عاد عن كده سنة تنزانيا دون كدبتي أنا وتعسين إزداد الصومالية أنا جو شن معلومات كور ويلكيجا أو تلاقت كجرو وسيجا تعسين وحنو أركي أدار الدار وحنو أركي إسليدت نبمرها وحاربنا مركا دولة إنا أناقا نوطهي إيه أمدا كالينا يوطهي إنا نوكال صار waxaan meeshan ka cadeynayaa aniga oo saldhiga yaaqi dhexdiisa ku jiro laba oday oo midna nabadoon sheeganay midna qabaawadaas kala sheeganay in saldhiga dhexdiisa uu dhaay gurigaas madagnaan dooti waan idin dili doonaa kiina ay sameeyeen taliyii saldhiga markaan dhaay dadkan kelmadda ay dhahayaan waa maqlaysaa wax oo jawaab oo ka bixiyay aysan jirin horta taas cadaalad daro hore ay ahayd haddana waxaan ka caawinayaa intii oo kale ay dhacdo ilaa hadda degmada Yaaqshiid inaan ka haynin wax cadeemo ah iyo wax loo yimid inaan hadda aan ka haynin oo meesha wali cadaaladda ay qarsan tahay dawladda federaalka madaxweyne farmaajo iyo wasaare iyo wixii oo la socdaba ilaa hadda inaan cadaaladda aan haynin wax ka soo hadlay hataa aan jirin meeshan waxaan u baahanahay inaan cadaalad aragno maanta Axmed dawladda waxaa joogay shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan haday ahaan lahayd dhalinyaradii haday ahaan lahayd culimadii haday ahaan lahayd diriskii dhammaan bulshadii oo dhan meesha isugu timid laakiin waxaa maqnaa doorkii dawladda ama dawladda hoos ha ahaato ama ha ahaato haddii la ku roon yahay dawladda dhexe xildhibaanadii golihii wasiiradii haddii la ku roon yahay aqalka sare baarlamaanka wax ka hadlay ilaa hadda ama nagala soo qaybgala aaska ma hayno dhacdada waxay dhacday khamiistii waxaan laga joogaa maanta khamiis jimco sabti axad 4 maalmoodaa laga joogaa ilaa haddana in wax inay yimaadaan la rabay ay aaskan ka soo qayb galaan ama bulshada mataqaanaa khaasatan waxaan la hadlayaa gudoomiyaha degmada Yaaqshiid bulshada meesha shilka ka dhacay waa degmadaadii meeshii adiga mataqaanaa ku magacaabineed waaye waxaa lagaaga baahnaa inaad mataqaanaa aad ka soo qayb gasho u timaado bulshadaadii aad tiiraanyada iyo murugta la qaybsato uma aad la aasto meeska kadibna aad cadaaladda hor keenta raggii mataqaan dhibkaas geystay maysa dhicin hadda ka hor ayaa waxaa dhacday nin ayaa nabiga arkay
salawaatullaahi wasalaamu calayh markuu arko wuxuu dhahay nebiyow markii adiga aan ku arkay ma naar galaa u dhahay fahmaysa anaga hadda waxaan taaganahay markii aan dawlad aragnay miyaadan darin na lagu samaynaya marka hadal badan ma qabo dawladda waxaan mar labaad aan ka codsanayaa in si cadaalad ah dadkii dhibkayna sameeyey ee maanta intaan loo geystay aan u helnaa sida uu dhaqsiyaha badan maalmo aan qaadanin muddana aan qaadanin marka hadal badan ma jiro waxaan leenahay kulli mas-uuliyiinta dawladda inay si dhaqsi ah jawaab degdeg ah u keenaan haddii ay yihiin gargaariyaasha ummadda Soomaaliyeed aniga ma sabrin mana sabri karo markaas mana wiilkayga waa dileen mana ka sabri kari laakiin waxaan jeclahay cadaaladda in la horgeeyo wixii oo diinta ay sheegaysa la mariyo aan jeclahay hadduu ilaahay diidin indhahayna hore iga dhaceen indhahayguu ahaa markaas adduun korkiis indhahayguu ahaa ninkii wax taraayou ahaa ninkii iduugi lahaayou ahaa ma kasteen marka waxaan rabaa cadaaladda diinta waxay qabtay in la mariyo dadka iga dilay wiilka oo indhahay tiray indhahaygu ayaa wiilkaas